kulanti wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii falanqaynta wararka warbixinaha dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan qodobada aad ku maqli doontaan wararkeena waxaa ugu waaweyn in ka badan 100 shirkadood oo kasoo qayb galay bandhigii koobaad ee dalka Soomaaliya ay ku sameeyeen xirmooyinka la doonayo in laga qodo saliidda warbixin iyo waraysi buuxa ayaa idinka haya daawadayaasha qiimaha leh qodobada dambe aad ku maqli doontaan wararka wacalaha dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan waxaa kamid ah warbaahinta iyo wasaaradaha qaar kamid ah wasaaradaha waaweyn ee dalka Britain oo ka qayb qaatay mudaharadada dhiigga badan ku daateen ee dalka Suuriya iyo xog baahsan oo laga ogaaday dalka Suudaan waxa uu ka gabangaabsaday isla markaana dib uga noqday inuu taageero qorshaha Ethiopia iyagoo ku gacan saaray qorshihii ugu dambeeyay ee ku saabsanaa biyo xidheenka wabiga Niilka iyo arinta halkaas ka taagan oo ay jiqs ku noqdeen xubnuhu mas'uuliyiinta Falastiin oo sheegay inay ka niyad jabsan yihiin waxay ku sifeeyeen laba dibleynta Carabta iyo laba dibleynayso Israa'iil iyadoo intii ugu dambeysay ee dhulka reer Falastiin la xabaalay qodobadaas iyo kuwa kale aad ku maqli doontaan wararka wacalaha dhinaca diblomaasiyadda waa 14 bishii May 2020 waa maalinimo Khamiis ah waa wararkii wacalaha dhinaca diblomaasiyadda qaybtii koobaad daawadayaasha qiimaha leh gaan dunida oo dhan daawadayaasha qiimaha leh sidoo kale waxaan rajeenayaa barnaamijka dheeraadka ah labada barnaamij dheeraadka ee soo kordhinay labada maalmood ee dheeraad dhaho ee soo kordhinay ee ku saabsan barnaamijka la yiraahdo xulashada dunida waxaan daawadayaasha qiimaha leh aan rabnaa maalmaha sabtida iyo arbacada iyo barnaamijkaas horta noqonaya daawadayaasha qiimaha leh waxa laga yaabaa in barnaamijku uu xoog saaray arrimaha tiknoolajiyada tartanka hubka iyo quwadaha waxaan rabnaa daawadayaasha qiimaha leh quwadaha hubkan diyaaradahan nuclearkan qalabkan technology-gan marka hore waa tartanka koobaad labaad saddexaad afraad iyo shanaad ee dunida hadda ka soconaya marka labaad waxaan sameeynaa oo dhan waa dad dhalinyaro rag iyo gabdhaba ah oo inagoo kala sida daraadeed daawashana qiimaha leh waxyaalaha aynu arintaasi u soo ururino ama macluumaadka noocaas ah intaan wakaalado uga soo tarjino la xiriirno idin soo weydiino ogolaansho aan saas kale u sameeyno waxa weeye ujeedku waxa weeye dadka Soomaaliyeed qabkooda ay ku daydaan dadkaasi dadka waxa sameeyay maaha kor lagama soo dirin malaa'ig maaha marka daawashana qiimaha leh barnaamijku ma noqon doono arrimaha dhinacaas kuma fognaa doono laakiin waa waxyaalaha ugu waaweyn ee muhiimadda ee caalamka ka jirta kale cabsida dunida ka jirta waxaan oo qalabaya waxaan ujeedlaan loo sameeysan maayo ujeedka laga leeyahay waa isdiyaarin iyo isku bartamash marka waxaan rajeenayaa inaad fahantaan barnaamijka noocaas oo kale qiimaha uu leeyahay sidoo kale aad ka fikirtaan qof walba sidii uu horumar u tiigsan lahaa si raggaas iyo gabdhahaas oo kale ay u noqon lahaayeen dhalinyarada waxaan aad iyo aad u rajeenayaa arrimaha noocaas inay dooda ka sameeyaan oo runtii ay baaritaano iyo iyaguba ay ku sameeyaan baxthiyo u gaara waxyaalo kale isku mashquulin ta kale daawashan qiimaha leh barnaamijka la yiraahdo markaasi tiigsiga ayaan soo kordhinay isagana barnaamijka tiigsiga maadaama uu yaraaday barnaamijyadii dadka la hor fadhiisanayay waraysyadii tooska ahaa haatan iyo waxa ka dambeeya barnaamij leeyahay tiigsiga oo ugu horeeyo barnaamijka hadda tashadalka Soomaaliya ku qaada dhigi doona ayaa daawashana qiimaha leh ku maqli doontaan isagana barnaamij kale ah oo barnaamijyada Horfadhi Media TV soo kordhisay daawashana qiimaha leh warbaahinta Horfadhi Media mar walba waxay jeceshahay inaynu sii ballaarino oo aynu horumar ballaaran aynu gaarsiino dhinaca warfidinta iyo qaabka warfidinta oo casri ah mar walba iyo goor walba anagoo u daneynana daawadayaasheena qiimaha badan anagoo keeni doona mas'uuliyiin madax heer kasta oo bulshada ah oo aynu ku waraysan doono barnaamijyada noocaas aan ku sii wararka wacalaha dhinaca diblomaasiyadda qaybta koobaad ee waaxda arrimaha gudaha amniga qaranka dalka Mareykanka ayaa digniin ka soo saartay xatooyo iyo baqdin baahsan oo ka soo food saartay in baaritaanadeeda iyo daraasadaha ku saabsan faafaha daran ee sida weyn loo goobayo dawadiisa ay haatan u muuqato inay halabsanayaan ama xatooyo ku suubinayaan saynisyahano iyo tuugaysi koox u qaabilsan dalka Shiinaha waaxda arrimaha gudaha dalka Mareykanka The Homeland Security ee warqoraal ay soo saartay iyo hay'adda FBI-da oo wada jiray waxay uga digeen dadka ku mashquulsan sida shirkadaha waaweyn saynisyahanada iyo jaamacadaha in ay iska jiraan waxay ku sifeeyeen xatooyo uu Shiinuhu qaban qaabinayo oo uu doonayo inuu ku meersado inta badan xogtaasi waaxda dalka Mareykanka u qaabilsan arrimaha ka hortagga amniga iyo ilaalinta kaabayaasha amniga internetka iyo badqabkiisa ee la yiraahdo the US Cyber Security and Infrastructure Security Agency waxa ay sheegtay in ay tani tahay digniin hordhaca oo sirdoon oo la ogaaday taasoo ku saabsan in aqoon-yahano dad sheeganaya laakiin tuug internet oo dhinaca burcada internetka oo Shiinaysa ay isku dayayaan inay dhex galaan maxadada gacanta ku haya soo saarka dawooyin lagaga hortago xanuunkan iyo waliba daraasadaha tarjuman iyo kuwa hadeerto la qoray baa sida daraadeedna waxa laga digay in ay waaxdaas ay ka digaysaa in laga feejignaado markaana la adkaysto amniga dhinaca dagaalka tiknoolajiyada ee dunida ayaa haatan mar ka dimaysa lagu la sii galaya arrimo waaweyn ee haatanna dalka Britain ayaa waxaa la ogaaday in uu ka mid yahay dalalka wadamada Carabta mudaharadada ka kiciyay isla markaana burburiyay inkastoo dadka Carbeed badankoodu ay tuuman noocaas qabeen isla markaana kolkii la ogaaday dadka Carbeed inay kaceen daadad iyo dabaylo la dhex marsiiyay waxaa la ogaaday barnaamij dhan oo ay sameysay qaar mid kamid ah wasaaradaha waaweyn iyo warbaahinta dalkaasi Britain inay iska kaashadeen oo ay doonayeen in dadka calaawiyiinta gaar ahaan
madhabta calawiyada ee shiicada haysta ee taageerayaasha u ah Bashaar al-Assad si gaar ah loo abaabulo warbixintan oo ay heshay wakaalada dhinaca wararka sirdoonka dalalka Carabta hadeerta ugu tutudharoon ee Middle East waxay sheegtay in warbaahin la sameeyay oo dhinaca bulshada iyo dhinaca internetka labadaba laga suubiyay ay lacag aad u badan ay ku bixisay dawladda dalka Britain taasoo la doonayay in la isku dhufto oo la sii horiyo mudaharaadyada barnaamijka loo bixiyay sarkha oo ah oohin ayaa waxaa la sheegay in uu ku kacay lacag aad u badan taasoo la doonayay in lagu abaabulo dadka reer Suuriya gaar ahaan kuwa taageersan madaxweyne Bashaar al-Assad waxaana barnaamijkan la bilaabay 2014 sanad kadib markii mudaharaadyadu halkaas ay ka bilowdeen waxaa lagu bilaabay marka hore in bog la yiraahdo sarkha ama bog la yiraahdo oohinta laga sameeyay barta Facebook iyadoo la ogaaday in maalmo kadibna uu helay 100,000 oo qof oo raaciya muddo yar oo kooban gudaheed markii la sameeyay bishii July ee sanadkii 2014 taasoo ka dhigan baa leeyahay in bogga loo isticmaalay dhaqaale aad u xoogan oo lagu shubay kadibna lagu kiciyay ama uu jiray mu'aamarad kale koox markaasi company Americana ama shirkad Americana ayaa kireysatay dawladda dalka Britain oo fadhigeedu yahay magaalada gobolka New Jersey magaalada leedahay Preston ee dalka Mareykanka taasoo la yiraahdo shirkadda magaceeda Better Police oo ka dhigan in ay ururiso afkaaraha iyo fikradaha dadka kala duwan kadibna waxaa la sheegay in dhinaca waxda istiraatiijiyada u qaabilsan arrimaha dhinaca militariga ee dalkaasi Britain ee loo yaqaan Conflict Stability and Security Fund waxda la yiraahdo oo ka shaqeysa danaha dalka Britain loona soo gaabiyo CSSF loogu talagalay in lacagta ay ugu talagashay in arrimaha xasiloonida iyo amniga ee qaranka dalka Britain looga hortago ama lagaga faagto meelaha fogfog lagu khasiro lacagtaas ayadoo waxda la dhaxmarinayo si aan looga shakiin lacagta waxa la sheegay in lacagtaasi ujeedkeedu ahaa in magaalooyinka ay ku badan yihiin dadka shiicada ee calaawiyiinta lagu abaabulo sida uu sheegayo qof magaciisa diiday oo ka shaqeey jiray laakiin asagu ah Suuriyan wuxuu yiri ma oran karno waan ku khasaarownay ma oran karno waan ku guuldareysanaa qorshaha waxaanu bedelay goor dambe ayuu yiri oo 2017 bishii October waxaana taa u bedelay kadib markii qorshihii sidoo hore u soo waayay inagoo markii dambe ku bedelay magacii sarkha waxaanu ku ayuu yiri xanuunka siman ama campaign wax la yiraahdo ayuu isagoo sheegay in ay ujeedka ay kala hayeen ay ahayd in ka rogo laba saar la dhigo kadib markii qorshihii sidii loo oogay u tabagali waayay waxaa la sheegay in la abaabulay dadka dhalinyarada ah ee calaawiyiinta ah ee dawladda ku kacsanaa kuwaasoo tabasho xoogan ka qabay in ay gacantu gaaleeyeen ragga odayaasha ee calaawiyiinta ee Bashaar al-Assad ka agdhow waxaana la sheegay in qaar ahaan lagu guuleystay dad ku sugnaa magaalada Tartus ee dalkaasi leeyahay Suuriya laakiin waxaa la yiri arinta la yaab kale dhabarjabka ku noqotay waxay ahayd kadib markii wariyaal u darboon u shaqeynta dawladda oo baraha bulshadana ku xoogana Bashaar al-Assad cilaaqaad wanaagsan la lahaa kuwaasoo qaybaha kala duwan ee warbaahinta ku jiray ay u babacdhigeen arrintan isla markaana ay joojiyeen ugu dambeyntiina waxaa la yiri way ka talaabsadeen oo waxay u ekeed inay iska caabiyeen oo ay ku guuldareysay diiday dawladda Britain baa la yiri inay qayb ka noqoto qorshahaasi ama ay soo jiidato dad calaawiyiin ay ku qanciso inay dawladda ku kacaan ama militariga ka goostaan ama saraakiisha kale ee ay noqdaan kuwa ka soo horjeesta oo joojiya xukunkiisa dalalka ay kamid yihiin dalalka Britain Faransiiska Mareykanka iyo dalal kale oo reer Yurub ayaa waxaa aad iyo aad loogu cambaaraya laguna xantaa inay qayb ka ahaayeen qorshayaasha noocaas oo kale daawadayaasha qiimaha leh muddo badan ayaa waxaa jiray in dalka Soomaaliya laga waday hindisa ee shidaal baaris iyo waliba in mar bal shidaal halkaas laga soo saaro sidoo kale markii ugu horeysay ayaa waxaa ahayd bila ka hor markii sharcigii ama bishii January bay ahayd markii sharcigii la ansixiyay batroolka ee Soomaaliyeed ee ugu horeeyay waxaa ku xigay in dhammaan barnaamijkaas ay taageereen dhinacyada kala duwan ee baarlamaanka labada aqal markaa madaxweynuhu qaranka ku duugay haddaba wax ay arintu soo socotaba haatan waxaa bandhigii horeeyay lagu sameeyay qaar ka mid ah xirmooyinka la tuhunsan yahay inay shidaal ku jiraan waxaana bandhiga qaban qaabisay wasaaradda macdanta iyo batroolka ee dalka Soomaaliya waxaa ka soo qayb galay 100 shirkadood in ka badan haddaba arrimo waaweyn oo ku saabsan shirkadahaas cid ay ahaayeen ma shirkadaha reer galbeedka kaliya arrinta la siinaya Turkiga iyo arrintii uu madaxweynaha Erdogan hore u sheegay maxaa ka jira iyo arrimo aad u waaweyn oo kale iyo barnaamijka Tigsiga aan idinku hayaa waraysi aan la yeeshay wasiirka wasaaradda macdanta iyo batroolka Soomaaliya Engineer Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa haddaba waxa uu dhacay sida tan qaybtiisa koobaad dalalka ay ka socdeen shirkadii shalay aad la yeelateen kulanka marka laga reebo Mareykanka yaa kaloo jiray
shirkado waaweyn oo caalamka laga yaqaana shalay ka mid ah dadkii daawanaya bandhigeena oo danaynaya soo is-register gareeyey dadka is-register gareeyey ama shirkadaha noqdeen ama maalgashadayaal caalami ah oo shirkada la falgalaya ha noqdeen waxay kor u dhaafayeen 100 shirkadood. tusaale ahaan dalalka haddaad mid iyo laba nooga sheegto ay ka socdeen caalamka shirkadaha ka socda oo dhan way ka mid ahaayeen haba u badnaadeen wadamada galbeedka oo Yurub iyo Mareykanka. shirkadaha caalamka ugu waaweyn waxaa ka mid ah Exxon, waxaa ka mid ahayd Shell, waxaa ka mid ahayd BP, kulli shirkadaha waaweyn caalamkana way ka mid ahaayeen. waa tahay inta badan gorsii horeysay madaxweynaha Turkigu wuxuu ka dhawaajiyay in Soomaaliya ay ka mid tahay meelaha ay doonayeen inay shaqo qotaan laguna casuumay. marka ma jirtay cid shirkadaha oo Turkiga ka socotay oo shirka shalay goobjoog ah shirkada Turkiga way ku jireen waxa soo wax daawaday caalamka shirkad iyo wadan ka maqnaa ma jirin 100 shirkadood ka badan soo dalbatay oo is-register gareysay Turkidana way ka mid ahay. marka ilaa haddeerto cid qaadatay 7 ceel ama gacanta u taagatay oo isku diiwaan gelisay inay tartanka ku jiraan ma jiraan mise waa dib ay ula noqdeen oo way soo naqaashayaan. waad mahadsan tahay shalay waxay ahayd oo kaliya soo bandhigid macluumaadka aan ka haynay seismikada iyo shuruucda inay noo dhamaadeen wax kasta ay diyaar noo yihiin. shirkadaha shalay markay daawadeen kadib waxay tagi doonaan xarunta lagu haayo daatadeena oo ku taala London meeshaas ay ka soo daawan doonaan ay ku arki doonaan sida saxda resource-ga ama khayraadka ka buuxa ku jira blogyadaas aan soo bandhignay kadib ay go'aan gaari doonaan bisha August-na bilaaban doonaa berri iyo saadama toonama. marka macallin wasiir injineer Cabdirashiid ma waxaad leedahay shirkadaha marka ayagu ay danwada soo dhamaystaan ay sahankooda soo dhamaystaan daatada ay fiiriyaan hadhowto dawladda Soomaaliyeed baa dooranaysa cidda u qaranta ma aha shirkadaha cidda ayagu dooqayskani saasa may horta daatada soo fiirsanayaan daatada wali waa la iibinaya daatada anaga waxaan nooga baxday kharash aan ku sameynay daatada waxaan u baahanahay daatada ummadda Soomaaliyeed iyo shirkadii maalgashiba inay soo cishato si marka cidii daawanaysa waa laga iibinaya markay ku qanacdo kadib oo ay iibsato oo ay ku qanacdo bloggaas ay rabto ay tartan u galaysaa cidii markaas ummadda Soomaaliyeed waxaan u xulaynaa tii aan isleenahay waxa ugu jira faa'iido han noqoto dhaqaale laga heli karo ama ilaalinteeda deegaanka ama magaca ay ku leedahay adduunka iyo sida loo yaqaano intaasan u xuli doonaa hadii Ilaahay yiraahdo. waa tahay waad ogtahay caalamka haddeerto shidaalku qiiqiil ayuu galay dhawaan ama qiimihiisu sidoo kalena waxaa jira tuhumo ah in shidaalkaas uu u muuqdo wax laga sii guurayo inta badanna idinku mar walba waxaa la leeyahay sida dadka Soomaaliyeed cadaadiska faraha badan ay idinku hayeen aad uga baqaseen ama siyaasiyiin ama mucaarad ama baarlaan ba waxaa dhacday in lagu dhiiro waayay in wadanka shidaalkiisa bal la soo saaro oo bal la ogaado bal wadanka Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed looga faa'iideeyo arrintaas ma jirtaa mise maxaad idinka qorshaysan. horta waa run waa laguma dhiirin hadda ka hor sababta loogu dhiiri waayna wax kala ma ahayn waxay ahayd in laga dhameystirayo shuruucdii iyo heshiisyadii caalamiga ahaa ee shidaalka oo ummadda Soomaaliyeedna shirkadaha ay ku aamini lahaayeen ummadda Soomaaliyeed dhexdeeda iskaga aamini lahayd. horta koow waxaan bilownay inaan heshiiskii lahaanshaha iyo maalgashiga iyo maamulka shidaalka khayraadka ummadda Soomaaliyeed ay ummadda Soomaaliyeed dhexdeeda ka heshiiso oo baydhabo lagu heshiiyo bisha June 5 2018 taas waxa soo dhamaaday adduunka dhan u cadaatay in ummadda Soomaaliyeed ay gaartay heshiis ay ku muujisay in waxa soo socdo ay qaybsan wadaagi karto kuna shaqeysan karto waa koow. arrinta maanta taagan adduunka ka taagan ee shidaalka inuu hoos u dhacay waa duruuf timid oo la timid duruufahan maanta caalamka jira ee COVID-19 kala leeyahay waxana ma sii joogtoomi doonaan ma sii jiri doonaan waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala in duruufta maanta taagan ay dhamaato ummadda Soomaaliyeed xilliga ay soo saarado doonto shidaalkeeda oo sanado badan ka dhiman yihiin ay ku aadi doonto xilli adduunka oo dhan looga qiimihiisa kor uga kacay ummadda Soomaaliyeed faa'iido ugu jirto. tan ku saabsan deegaanka iyo ilaalintiisa aad iyo aad aan ugu tala jirnaa shirkadaha imaan doona inaan heshiis culus kala galno ileen meesha annaga aan baaranayna khayraad kala noogu jira oo leh noole kalluun iyo noole kale iyo badaason isticmaalno annaga iska leenahay marka
in intaan isleenahay faa'iido soo jiita oo xoolo hela inaan waxaan haysana ku ciyaarno ma yeeli karno waana ka dadaalaynaa insha Allah taala waatay macali qodobka ku saabsan amniga waa mid kamid ah muhiimadda ay leedahay in lagu dhiirado dunidu ku dhiirato in shidaalka Soomaalida uu kaydsan la soo saaro walina daldaloolo badan baa ka jira dhinaca amniga dawlad ahaanna markaad idinku rabtaan inaad shirkadaha cadaadisaan oo aad tirahdaan deegaanka ka soo dhalaala oo dhaqaalaha waxa noo ogolaada intayada inaad codkayga qaadano ayaguna shuruudaha ku xidhi doonaan waxa kamid ah inaad amaankooda naftooda iyo maalkooda inaad xaqiijisaan amnigiisa arrintaas dawladdiinu maxaa uga diyaarsan ma jiraas ciidan loogu talagalay waxaan inay la fadgalaan oo ilaaliyaan amniga goobahaas maanta hadii la idinka qaato amnigooda ma sugi kartaa waa maasantay horta markii shidaal la iibgeynayo ama shirkado la rabo in lala hadlo amniga kaliya ma aha qodobada loo baahan yahay in la fiiriyo waa koow horta waxaa la fiirinayaa baaritaan ma lagu sameeyey goobtan la rabo in la iibgeeyo wax ma ku jiraan tansaan sheegaya in shidaal ku jiro ma lagu hayaa waa koow horta taas waan haynaa tan labaad oo ummadda Soomaaliyeed ugu muhiimsan wax kasta waxa waa mowqaca istiraatiijiga ee Soomaaliya ay ku taal Ilaahay ku abuuray subhanahu wa ta'ala oo ah Soomaaliya waxay u furan tahay adduunka oo dhan cidii rabta inay maalgashato way fududahay inay maalgashato tan saddexaad waa amniga waxaan aaminsanahay haddii shidaal iyo shaqadiis la bilaabo in isaga uu qayb ka yahay amni abuurka dhalinyarada Soomaaliyeed shaqo la'aanta ayaga qayb ka noqon doona inay ilaashadaan khayraadkooda iyo hantidooda ummadda Soomaaliyeed maadaama heshiis ay ka gaartay sida loo wadaagayo ama looga wada shaqeynay cid maamulayso waxaan aaminsanahay dawladda Soomaaliyeed inay awoodi doonto inay amniga shirkadaha sugto sidaas darteed waxaan haynaa dhammaan qodobadii soo jiidan lahaa shirkadaha adduunka si ay u maalgashtaan ha noqoto mowqac istiraatiijiga Soomaaliya ku taal ha noqoto shuruucda aan gacanta ku hayno ha noqoto daatada geologicada aan gacanta ku hayno iyo amniga oo ah inaan ka wada shaqeyn doono insha Allah ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay nala fiiriyaan oo nagala shaqeeyaan sugidda amniga dadka ajnabiga ee imaan doona ee maalgashan doona Soomaaliya insha Allah waatay wasiiro waxaad tiri ceelasha meesha hadeerto suuragalnimada u ah in laga yaabo in la qaato mustaqbalka ama hadeerto la hubiyay ama la baaray tuhunku ka jiro in shidaal ku jiro waa laga soo bilaabo galmudug ilaa gobolkan Jubaland baa tiri Jubaland iyo xiriirka dawladda dhaxana sidoo yahay adigu aad wasiirka u tahay waa loogi sidee markaa isku waafajinaysan iyadoo khilaaf uu jiro siyaasadeed iyo in heshiiskii uu fulo oo shirkadii markay heshiiskii saxiixdo waxay doonaysaa inay arrintii fuliso arrintaas la isku cunsinaya wala rabta maanta waxaan ka shaqeynayna waa soo bandhigid macluumaadka Soomaaliya Jubaland waxay kamid tahay Soomaaliya heshiiskii lahaanshaha iyo maamulka iyo wadaaga khayraadkana waxay ka saxiixday wax dhibaato oo ka iman doona maamulkiisa iyo Jubaland in issue ka keeni karto muxuu ahaa arrintan ma jiri karto waana heshiiskaas waxa ku cad yaa mandate u leh inuu maamulo inuu heshiis la galo shirkadaha caalamiga waana dawladda federaalkana ka shaqeynaysa waxaana 100% ku xaqiijinaya in Jubaland ay qayb ka noqon doonto ka shaqeynta iyo fududeynta hawlgallada batroolka ee Soomaaliya ee soo socda insha Allah daawayalkaasi waa wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta Soomaaliya qaybta labaad ee waraysigana waxaad ku daawan doontaan qaybta saddexaad ee wararka wacalaha dhinaca diblomaasiyadda iyo qodobo kale waaweyn daawasha qiimaha leh daqiiqatayn